akhyaarta madasha fadhiya madax iyo maskax maalba bahda jaamacadda iyo martidooda farxad bay ii tahay in aan la soo kulmo munaasabadan farxadda leh caawa anigoo socota oo maalmo kooban socdaal ku jooga magaalada Garowe in aan munaasabad sidaan oo kale u farxad badan oo camiran u yididiilo badan in aan la kulmo aad bay farx gelinaysaa waxaan jeclahay marka ugu horeysa in aan hambalyeeyo waxaan u hambalyeynayaa qalinjabiyeyaasha aqoon-yahanada cusub aqoon-yahanada ku soo biiray bahda aqoon-yahanka Soomaaliyeed ayaan u hambalyeynayaa waxaan kaloo u hambalyeynayaa waalidkood waalidkii ku soo dadaalay oo ku soo tabcay oo soo gaarsiiyey meeshaas maamuuska leh waxaan kaloo u hambalyeynayaa jaamacaddii soo saartay oo waxbartay oo shahaadada guddoonsiisay caawa waxaan intaba ugu hambalyeynayaa guusha ay gaareen ardayda aqoon-yahanada u dallacday waxaan ugu hambalyeynayaa guusha ay ku guulaysteen dadaalkii ay muddada dheer soo wadeen marxalad muhima ma oranayo tacliintii ay dhammeeyeen waxbarashadu ma dhammaato laakiin marxalad aada muhiim u ah in ay ku guulaysteen ayaan ugu hambalyeynayaa sidoo kalena waalidiinta iyo jaamacadda waxaan ugu hambalyeynayaa in ay ku guulaysteen howlgalkii ay muddada dheer soo wadeen shaki kuma jiro intaba inay u tahay wax weyn oo ku soo biiraya guulaha nolosha laga gaarayo waalidka wax ka farxad badan ma jirto ama waxay ka mid tahay yani farxadaha ugu waaweyn marka ay arkaan ilmahoodii ubadkoodii ay ku soo tabcayeen oo heerkaa ka maraya muxuu ahaa waxbarashadii ay kula tacaalayeen anigu ka mid baan ahay waalidiintaas marna waan ahaan jiray arday qalinjabiyey dhowr jeer markaa waan xasuustaa farxadda ay ii lahayd markii anugu aan ahaa arday koofiyaddaas loo geliyey iyo roobkaas halkaanoo kale soo taaga iyo markaan arki jiray ubadkaygii yani carruur aan dhalay oo saas oo kale aan xafladooda qalinjabinta ka soo qayb galo labaduba waxay ahaan jireen munaasabad aad farxaddan marka farxaddaas annaguna waa idinla wadaagnaa caawo waxaa aan hoosta ka xaqiiqayaa jaamacaddan caawa soo saartay aqoon-yahanadaas cusub jaamacadda Boosaaso aniga maqal bay ugu ahayd laakiin muxuu ahaa caawa inaan la kulmo midhaheedii iyo heerka muxuu ahaa jirada iyo tayada halkan midhaha ay soo saartay jaamacaddu iyo xogtii ay bixinayeen mas-uuliyiintooda markaan aan maaragtay ka marag noqday waxaa ii soo baxay sawirka jaamacaddu sidii aan moodayay inuu igala weynaaday